بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil, mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com. Mac operating system ama Apple shirkadda la yiraahdo operating systemka ay samayso oo sida Windowga Microsoft samayso oo kale ayaan ku baran doonaa. Qaabkee loogu duubaa Adobe App on Mac OS runtii sida window kale uma fududa. Arday badan way soo weydiiyeen. Saa awgeed haddii aad isticmaashid laptop, haddii aad isticmaashid noocyada kala duwan ee uu ku shaqeeyo Mac operating system, waxaanu ku baran doonaa casharkan fudeedka ah qaabka loogu duubo Photoshop, Acrobat Professional iyo Premiere, kuwaasoo dhammaantooda kuwa soo baxay sanadka iminka aan sameynayno casharka oo ah bilowga 2018. Saa awgeed waxaanu baranaynaa install Adobe Apps on Mac OS. marka qaabka loogu duubo inagoo isticmaalna virtual ayaan ku baran doonaa casharkan insha Allah. Sidaad ku aragtaan waxaa halkan yaala VMware Workstation oo aan ku duubnay Mac. marka casharo aad u fara badan ayaa laga sameeyey qaabka loogu duubo. halkaas ayaad ka heli kartaan. Windows 10 ayaa halkan yaala oo ah motherka. halkana waxaa ku duuban VMware ayaa ku duuban. marka linkiga waxaa idiin soo diraya softwarekan kaasoo ah kan ugu dambeeya oo Sienna ah. halkana waxaa yaala saddexda software oo aan doonayno inaan ku duubno. marka laba jeer ayaan riixayaa. waxaan ku bilaabaynaa ugu horeyn Adobe Premiere ayaan ku bilaabaynaa. kuwana waa idiin soo dirayaa linkigooda. kan ayaan furayaa. halkan ayaan laba jeer riixayaa si aan ugu duubo. Skip ayaan leeyahay. kadibna waxaa soo baxaya softwareka. Build ayaan laba jeer riixayaa. markii uu furmo kan dusha ah oo install ay ku qoran tahay ayaan laba jeer riixayaa. kadibna waxaan leeyahay continue. waxyar kadib halkan waxaan ka leeyahay continue. install ayaan leeyahay. wuxuu weydiinayaa tabcan passwordka. mar walba password ayaa lagu furaa. kan waxaan u isticmaalaa 1 2 3. install ayaan leeyahay. kadibna waqti aad u yar wuxuu ku duubayaa softwareka kaasoo ah Adobe Premiere. runtiina xilliga la isticmaalayo Mac-ga caadiga ah ama virtualka, mar walba editorka lagu sameynayo video iyo kuwa tayadooda aad u wanaagsan tahay waxaa loo isticmaalaa Adobe Premiere oo loo isticmaalo Mac. Windowga isaga ayaa ka wanaagsan, Photoshopka ayaa kaga wanaagsan, noocyada kala duwan ee After Effects ayaa ka wanaagsan. haddii aad doonaysid inaad noqotid professional video editor nooc walba ah oo aad isticmaalaysid Adobe Premiere, waxa ugu wanaagsan ee la isticmaalo waa Mac. Windowga waa loo isticmaalaa laakiin tayo ahaan mar walba Mac ayaa la isticmaalaa. Running a package script ayuu leeyahay. markuu ku dhammaado waan la soo laabanaynaa. kadibna waxaan ku sameynaynaa activation ama active ayaanu ka dhigaynaa insha Allah. shanqar yar ayaa yeeraysa. installation was successful ayuu ku leeyahay. kan ayaad xiraysaa. kadibna kanna waad xiraysaa. kanna waad xiraysaa. waxaad aadaysaa crack ayaad aadaysaa. laba jeer ayaad furaysaa. kan ayaad waxaad leedahay right click ayaad leedahay. waxaad leedahay copy filekan ayaad leedahay halkan. markaad ku samaysid waxaad aadaysaa go ayaad aadaysaa halkan. waxaad leedahay applications. kadib waxaad raadinaysaa Adobe Premiere oo ku duuban systemka. waa kan halkan uu yaalaa. isaga ayaa laba jeer riixaysaa. markaad riixdid right click ayaad ku samaynaysaa. kan dhanka bidix ayaad ka riixaysaa. waxaad leedahay show package contents ayaad riixaysaa. contents ayaad riixaysaa. kadibna framework ayaa la riixayaa. meel banaan ayaa la tagaa. right click waxaad leedahay paste ayaad ku leedahay halkan itemkii. isla markii wuxuu ku weydiinayaa replace ku samee ama bedel. replace ayaad riixaysaa. markii aad riixdid caadi ayuu shaqaynaya. marka waxaanu sameynaynaa kan waan ka baxayaa. waxaan leeyahay iminka go application ayaan tegayaa. kadibna waxaan raadinayaa isla key ayaan ku laabanayaa. kan ayaan desktop saan usoo dhigayaa. markii aan soo dhigo laba jeer ayaan riixayaa. waxaad arkaysaa in yar kadib inuu laba jeer saddex jeer uu boodayo uu soo baxayo, taasoo aan u baahnayn wax activation ah. sidaan usoo raacnay oo aan u sameynay ayuu ku shaqaynayaa. marka in yar ayaanu sugaynaa marka ugu horeeya ee uu furmayo. qaabkan ayuu u furmaa. waad ujeedaa Adobe Premiere Professional wuu soo baxaya. wax yar kadib waanu sugaynaa insha Allah. saad ku aragtaan wuu soo baxay Adobe Create Cloud Premiere Professional. marka haddii computerkaaga uu ku jiro memory iyo process awood leh, uma baahnid Mac in aad soo iibsatid. waxaad isticmaalaysaa virtual environment oo noocan ayaad isticmaalaysaa. laakiin processka waa inuu ahaadaa mid xawaarihiisa i7 ah waa inuu ahaadaa. haddii kale wuxuu kaa noqonayaa si liita ayuu shaqaynayaa. tayadana ma wanaagsanaanayso.
marka looma baahna inaad iibsatid mac. Kan ayaa mac ka dhigaysaa adigoo uu isticmaalaya inaad ku samaysid editing. ugu dambeyntii qaabkan ayuu soo baxay iyadoo tayada iyo quality-ga uu aad u wanaagsan yahay saa ku aragtaan. haddii aad doontid waxaad leedahay skip ayaad leedahay, waxaad arkaysaa kan ayaa soo baxaya, waxaad leedahay screen resolution-ku ka hadlayaa, okay ayaad leedahay. kadibna waxaad si toosa u isticmaali kartaa Adobe Premiere oo halkan aad kaga bilaabaysid new ayaad xulaysaa. kadibna waxaad raacaysaa qaabkii loo samayn jiray oo ah runtii mid aad u xiiso badan oo aad ku samayn kartid wixii aad doontid oo video editing ah oo loo isticmaali karo nooc walba oo professional. qaabka loo bartan runtii aad ayuu u fudud yahay. inta badan focus ma saarno annaga in aan video editor samayno. qaar ayaan ka samaynay anagoo isticmaalayna kan iyo kuwo kale, laakiin waqtigoo yar aawgii lama samayn karo cashiraad u far badan. kadibna waxaan ku laabanayaa desktopka oo softwareka Adobe software ay taallo. kan waa idin soo diri doona insha allah. Photoshop ayaan ku xijinaya iminka isla qaabkii 2 jeer ayaan riixaya kan dusha. karaaga waa karaag, skip ayaan leeyahay kan. kadibna waxaa soo baxaya packagekan sidan ayaa soo baxaya. kan ayaan ka bilaabaya iminka. waxaan leeyahay install ayaan leeyahay ama ku duub. طبعا 1 2 3 ayaan gelinayaa kaasoo ah passwordkan uu isticmaalo. isla markiina wuxuu ku sameynayaa installationkii qaabkii haddaan wararno kale u sameynayaa. halkan ayuu ka soo baxayaa. marka mararka qaarkood waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo username iyo password, waxaas inuu ku weydiiya laga yaabaa. waxaa loo baahan yahay in aad disable aad ka dhigtaa internetka. marka tan ayaan doonayay in aan intuso, waana muhiimkan. marka qaabka looga dhigo aad ayay u fududahay. disable waxaad ka dhigaysaa internetka ayaa ku xiran. marka kan waad xiraysaa, disable ayaad ka dhigaysaa. markaad ka dhigtidna hore ayaad ka isticmaalaysaa. marka si aan u xirno internetka, tabcan halkan ayaad tegaysaa. kadib system preference ayaad riixaysaa. waxaan raadinaynaa network oo halkan yaalla. haddii aadan arkin halkan ayaad ku qoraysaa network. 2 jeer ayaad riixaysaa networka. kadibna using DHCP off ayaad leedahay, apply ayaad leedahay. isla markii wuu xirayaa. kan tabcan waan ku soo laabanaynaa. iminka install haddii aan idhaahdo waxbay weydiin maayo. waxaan gelinayaa passwordkii installationka caadiga ahaa. kadib hore ayuu ka aadayaa ku duubista. waad ujeedaa wuu ku bilaabmaya halkan 6% ayuu marayaa. xawaare ayuu ku socdaa. markii hore sababta uu ii weydiiyey Adobe Photoshop CC 2018 versionka ugu dambeeya wuxuu ahaa internetka oo ku leeyahay waa inaad ku xirantahay isla markaana iska diiwaan gelisa. marka uma baahna iminka saa ku aragtaan. markuu ku dhammaado halkan yimaado inagana waan la soo laabanaynaa si aan u samayno activation insha allah. waa ku duubmay. halkan ayuu yimid. markuu sidan usoo baxa automatic waxaad leedahay assign it later start trial ayaad leedahay. waa muhiim sidan inaad samaysaa. kadibna waanu xiraynaa markuu soo baxo. waxaan doonaynaa hal mar in Adobe uu soo baxo. accept ayaan leeyahay. markaan idhaahdana waxaa dhacaya in Adobe Photoshop versionka ugu dambeeyey oo Mac loo isticmaalo qaabkan u soo baxo, laakiin weli ma ahan version full ma ahan. iminka ayaanu ka dhigaynaa markuu qaabkan u soo baxo. wax yar kadib ayuu soo baxayaa. markuu soo baxo waxaanu samaynaynaa kan monitorka ayuu ka hadlaya, waxba dhibaato ma leh. markuu saan u soo baxo waxaanu samaynaynaa waanu xiraynaa. kadib ayaanu karaaga ku duubaynaa. markii aan ku duubno full version ayuu noqonayaa. mar dambe ku weydiin maayo furageli ama wax ku samee ku weydiin maayo. markuu sidaan u soo baxo waxaad samaynaysaa halkan ayaad riixaysaa dusha ah, waad xiraysaa. markuu xirmana waxaanu ka dhigaynaa insha allah active ayaanu ka dhigaynaa. waad ujeedaa Photoshop kaliya yaqaanaysaan ayuu soo baxay, laakiin weli ma ahan full version ma ahan. waayo full version hadduu ahaan lahaa nama weydiin lahayn waxba. kana waan xirayaa. iminka markaan xiro kan karaaga ayaan 2 jeer riixayaa. markii aan riixo waxaa ii soo baxaya filekan isla 2 jeer ayaan riixayaa. markii aan riixo aad ayuu u fudud yahay qaabka loogu sameeyo. lama baahna in meel kale file la geeyo. halkan ayaa laga furayaa. skip ayaad leedahay. markii aad tiraahdid kadib waxaa soo baxaya filekii aanu doonaynay in aan kaga dhigno active Adobe Photoshop oo full version ah. markuu sidan u soo baxo waxaad leedahay manual install ayaad 2 jeer riixaysaa. kan ayaa soo baxaya. isaga ayaa 2 jeer riixaysaa. kadibna waxaad leedahay skip ayaad leedahay. marka skibyada badan yaa la iloobin. ugu dambeyn kan ayaa kuu soo baxaya. kan labada markaysaan usoo baxaan kan ayaa la aadayaa Adobe ZII ama ZII. isaga ayaa la furayaa. patch oo drag ayuu ku leeyahay. patch ayaad leedahay. yar kadib eeg Adobe Photoshop 2018. Premiere-ka xataa wuu sameeya, laakiin Premiere horaan u samaynay nooc kalean u samaynay ma baahnin. kan waan xirayaa. kana waan xirayaa. kana waan xirayaa. kana waan xirayaa. iminka waxaan aadayaa go applications. markii aan aado waxaa halkan yaalla Adobe Photoshop. 2 jeer ayaan riixayaa.
kan ayaan kusoo qaadaya desktopka ama hoosan ayaan soo dhigayaa ama hoosan uusaan u yaallaa marka isaga ayaan furayaa markii aan furo kan horta waan xirayaa ugu horeyn kan ayaa markale aan furayaa aad ujeedaa si toos ayuu u shaqeeyaa kan haddii halkan aan ka furana isna si toos ayuu u shaqeeyaa marka wax uu u baahan yahay haba yaraatee ma jirto update haddii aad waa ka dhigaysaa kan waan xirayaa halkan ayuu yaallaa saan ayaan u furayaa waan xirayaa caadi ayuu u shaqeeyaa marka haddii aan yidhahdo kan quit haddii aan yidhahdo aan ka saaro si aan u xaqiijiyo kan ayaan halkan ka bilaabayaa social ayaan leh markii ugu horeysay si loo xaqiijiyo wuu soo baxayaa markuu soo baxana waxaad arkaysaa isagoo si toos ah u furmaya oo aan u baahnayn fura aan u baahnayn login aan u baahnayn wax kale aan u baahnayn si toos ah ayuu usoo furmaya halkan wax yar kadib waa ka in yar kadib wuu soo baxay si automatic ayuu u xirmay marka kan waa noo dhammaatay kan waa u dhammaatay ugu dambeyn waxaanu ku duubaynaa Adobe Acrobat oo ardayda qaarkood ay soo weydiiyeen isagana kan ayaa lasii furayaa isla sidii ayaa kan dusha ah oo DMG ugu dambeeya ayaa laba jeer riixaysaa skip ayaad leedahay isagana waxaad ugu duubaysaa sidii caadada ahayd loogu duubo halkan ayaa waxaad laba jeer riixaysaa Adobe Acrobat kaad riixaysaa install waa kan wuu sii furfuraya dhammaan kadibna si toos ayuu ugu duubaya marka waxaan leeyahay continue halkana continue use a trial ayaad xulaysaa waa muhiim continue ayaad leedahay install wuxuu ku weydiinayaa tabcan passwordkaaga adiga aad u samaysatay ayuu ku weydiinayaa install ayaad leedahay wuu ku duubayaa sidii Acrobat professionalka ahaa ayuu ku duubayaa markuu ku duubo waqti kadibna waxaa dhacaya installation successful ayaa soo baxaya markuu soo baxana tabcan waxaanu isticmaalaynaa waan ku laabanaynaa dhanka iyo crag ayaan u tegaynaa isagana waxaanu samaynaynaa in craggan aan ku duubno bal aan sugno ilaa uu ka dhammeeyo wuxuu leeyahay 2 daqiiqo ayuu qaadanayaa isagana shanqar yar ayaa ka yeertay installation was successful waxaan leeyahay xir ayaan leeyahay crag ayaan tegayaa isla qaabkay uu shaqeeyo wuxuu la mid yahay kan Photoshop oo kale skip ayaan leeyahay wuu soo baxay oo aragtaan isku si ayuu u shaqeeyaa ZII skip ayaan leeyahay isagana kadibna ugu dambeyntii halkan ayaan 2 jeer riixayaa isna waxaan leeyahay page ka dhig xitaa Photoshopka iyo wuxuu soo qabanaya Premiere ku soo qabanaya laakiin ma rabin inaan isku qaldo okay aad leedahay kan kadibna waxaad leedahay 1 2 3 oo passwordka ah wax yar kadib waxaan halkan ku arkaynaa in uu page ku sameeyo Acrobat readerka ku sameeyo uuna ku dhameeyay complete waad aragtaan marka aan ka wada baxo gabi ahaan isagana tabcan isla meeshii yaalla ama halkan ayaa saan uga furi kartaa laakiin halkan ayaa la aadaa applications markii aad tagtid waa kana ujeeda waad furaysaa waa kan uu yaalla waad soo qaadaysaa halkan ayaa soo dhigaysaa waxaad leedahay kan waad iska xiraysaa kadibna waxaad furaysaa Adobe Acrobat Professional marka Acrobatka freega bilaashka ma ahan kan waa kan professionalka ah editorka lagu sameeyo nooc walba oo PDF ah adigoo isticmaalaya Mac isticmaalaya marka waa qaabka ugu fudud ee loogu duubo software nooc walba ayay leedahay default ayuu ka dhigayaa nooc walba ah oo 3 Adobe ah kuwaas oo ah Photoshop Premiere iyo Adobe Acrobat Professional ah marka sida hore idinku sheegay iyagoo kala baxsan software halkan ku jira ee 3da ah waan idin soo dirayaa linkiyadooda iyo videogan waana baran doontaan insha Allah qaabka loogu duubo hormaadka isticmaalaysan wixii macluumaad ah casharada kale mar walba info@sologroups.com anigoo ah Macalin Cabdinaasir inta hawada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh